الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، caawa oo habeen ثلاثاء taariikhduna ay noqonayso 23-ka dulxija 1447 kuna beegan 9-ka Juun oo caawa soo galaysa 2026. waxaynu insha allahu tacaala aynu bilaabanaynaa fanniga xadiidka suubanaha nabiga calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii ah, waxyigii labaadna ah. darsiga caawa aynu halkan ku akrinayno waa duruustii, wuxuu ka mid yahay duruustii kor ka socotay masaajidka qaybtan kore dhowrta sanaba soo socotay, ee ku soo bilaabatay fanniga fiqiga safiino ilaa minhaajkiisii lasoo qaatay, usuulkiisiina uu hadda socdo iyo culum kaleba. darsigan marka inuu xagga hoose usoo dhaadhaco bay noqotay, ilaa duruustu xagga kore ka socotay. maadaama oo aynu soo qaadanay fiqigii intii aynu ugu talagalay oo kitaabka minhaajka ku joogay, waxaynu insha allahu tacaala munaasab noqotay aynu qaadanaynaa aslaynkii uu fiqigu ka yimid mid ka mid ah. sida aad garanaysaan, axkaamtu waxay ka timaadaa oo asal u ah aslaynka alkitaabu wasunnatu, qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. labaduba waa laba waxyi weeye. labadoodaas ayay axkaamtan faraha badaan ee fiqiga aan baranaynay halkaasaa laga soo ururiyey. ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay. waxaan kugu soo dejinnay kitaab wax kasta caddaynaya. nabigana calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiid ku lahaa alaa inii uutiitu lkitaaba wamidlahu macahu. waxaa la isiiyey kitaab oo qur-aanka uu la jeedo, wamidlahu macahu, mid lamidna waa la isiiyey. waa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam. kaasaynu marka insha allahu tacaala yaynu ka qaadanaynaa wixii ilaahay inaga waafajiyo. silsiladda ee sida lagu iclaamiyey, qaybtani waa marxalad koowaad weeye. markay dhammaatana waa marxaladda labaad oo kutubteeda aynu arki doono insha allahu tacaala xilligeeda. qaybtan marxaladda koowaada waxay isugu jirtaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo fannigii xadiidka u adeegaya ee musطalaxa ahaa. musطalaxu wuxuu ka hadlayaa almaqbuulu walmarduudu min alaxaadiid. axaadiidta qeybna waa maqbuul oo waa la xujaysanayaa, waa axaadiid sugan oo saxiix iyo xasan u qeybsamaysa. qeybna waa qeybta marduudka la yidhaahdo weeye, aan sugnayn. marka cilmiga lagu kala shaandheeyo ee lagu barta weeye, ee u adeega xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka labadaa qeybood buu ka kooban yahay qeybta hadda la iclaamiyey. qeybta marka xagga hoose aan ugu talagalay waa xadiidka weeye. amaa qeybtaa kale ee musطalaxa oo culuumul aala lagu sheego, lagu tiriyo, xagga kore iyo casarkii ay duruustu asalka ku ahayd bay ku socon doontaa insha allahu tacaala. kitaabkeenna aynu caawa bilaabanayno waa kitaabka aad wada garanaysaan, kitaabu اlarbaciin lilimaam أبو زكريا محي الدين
يحيى ابن الشرف رحمه الله تعالى إمام كاوين يتقرن هيسان صاحب التصانيف المتنوعة شيخ كتاب كيسوي وكتاب إلهي سبحانه وتعالى وبركيه سيدا الضبيعة كتاب كتبتك لأ شيخ فنون تيذك لدوان إلهي سبحانه وتعالى شيخ علم كيسا يعمل كيسي ومدى وقت غيبة وبركيه ويه وحوض الشيء سنتكم مركوها اللح بقول يصدن يكو هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وحونا جيريودي اللح بقول يتضبات يلح مركي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وحونا كو جيريودي عمري أفرتن يشنعة فرتن يشنجر أيو كو جيريودي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وداء ذو ير markii loo eego dhaxalka uu ka tagay farabadnidiisa aad iyo aad ay da'daasi u yar tahay laakiin midhaha intaa leeg waxa uu maartay uu musannifku uu ku dhiiqay ama uu inooga tagay waa dadaal uu bixiyay oo waqtiga inagu hayno haysanay 24 saac uu isaguna haystay taa uu isaguna ka faa'iideystay sheekhu rahimahullahu ta'ala wuxuu ku dhashay meesha nawaa la yiraahdo ee loo tiiriyo an-nawawi ama an-nawawi labadaba waa la yiraahdaa oo ka tirsan Suuriya halkaas oo musannifku rahimahullahu ta'ala uu ku dhashay aaba wanaagsan oo cilmigii ehelkiisa jecel ayaana dhalay oo koriyay oo barbaariyay isaguna wuxuu noqday qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaraantiisiiba uu u qorsheeyay cilmiga barashadiisa iyo aadaabta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan qofku Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu koriyay buu ahaa waxay culimada mid kamid uu sheegaa waxaan arkay buu yiri isaga oo yar oo aad u daayar oo xilligii quraanka dhiganayay isagoo caruur yar oo daadiisa ay ku qasbayaan kaalay oo nala soo ciyaar isaguna uu diidan yahay uu ooyayo iyagoo ciyaaraya isagoo halkaa dhinaca uu iska fadhiyo quraanna uu akhrisanayo ciyaartoodiina uu diidan yahay sheekhaasi marka wuxuu leeyahay kii yaraa marka ishaan galiyay waxaan dareemay oo aan arkay inuu yahay shakhsi ka duwan caruurta isaga daadiisa ah oo xaalad fiican oo qurux badan ay ka soo socoto waxaan u tagay buu yiri marka macallinkiisii oo ku yiri kan yar waxba ka soo socday ee u dadaal oo xaaladiisa ogow markaas wuxuu ku yiri oo mafaaliyata maxaad ku ogaatay ilmaha yar ma ilaahay un baa iga hadliyay quraanka markuu dhameeyay oo dhowr iyo 10 jir yahay ayuu aabihii la safray oo uu la tagay Dimashq caasimadan hadda Suuriya madrasa halka ku taalo madrasa rawaaxiya la yiraahdo ayuu marka galay dadaal aad fara badan buu halka ku bixiyay muddo taqriiban 2 sano ah waxay sheegaan 2 sano oo isagu uu sheegay inuuna dhinaca dhulka dhigin habeenayaan maalin midna ma seexanin yaana seexasho uu dhinaca dhulka dhigayo markuu daalo derbiga iyo kutubtiisa uu ku yara dangiigsadaa in yar buu indhaha isku yara qabtaa kadibna halkiisii ayuu ka sii wataa duruustiisa iyo casharadiisa sanadka 2 sano sanadkii koobaad 4 bilood iyo bil haafkeed wuxuu ku xifdiyay kitaabka la yiraahdo at-tanbih lil imam shirazi rahimahullahu ta'ala ee fiqhi aad garanaysaan sanadka intii ka hadhayna wuxuu ku xifdiyay rubuc al-ibadat min kitab al-muhadhab kitaabka muhadhabka la yiraahdo isna shirazi uu leeyahay oo isagu markii dambe uu sharxi doono kitaabka majmuuca uu ku sharxay kitaabkaas rubuc al-ibadat ka xifdiyay intii sanadka ka soo hadhay marka dadaalka uu halka galiyay baa dareemaysaa culimo waaweyn oo culimadii waqtiga joogtay ah ayuu wax ka bartay oo ka faa'iideystay waxa kamid ahaa culimada oo sheekhiisi ugu horeeyay baa ahaa الشيخ العالم أبو إبراهيم إسحاق ابن أحمد المغربي الشافعي حكم ذها علماء وسيد جارك ولازمي علم كان أوكو بالله إلى ودمن هينا إسقى أيو سجار وسي لازمي
sheekhu markuu dadaalkiisii arkay faraha badnaa aad buu u jeclaaday markii dambana wuxuu uga noqday muciid qof ardayda ugu soo celiya yani waxaa jiri jiray arday qof la yidhaha muciid oo sheekhu markuu cashirka akhriyo waagii hore kutubtan iyo waxa la duubaya iyo wax badan oo maanta la haystaa waagii hore ma jiri jirin sheekhu marka intuu ardayda bad cilmiga ku sii daayo ayay ardayda iyagu dib isugu noqon hayaan oo raacanayaan oo isla celcelinayaan oo isla qabanayaan marka ardaydii marka sheekhu uu sidaa u akhrinayay ayuu marka muciid ayuu oo cashirka ugu soo celin jiray ilaa uu sheekhii uu geeriyooday raxmatullaahi tacaala calayhima jamiican waxaa ka mid ahaa culimmadii uu wax ka bartay alimaam abu cabdillaahi moxamed bin cabdillaahi alطaa'i alandalusi saaxibu alfiyati bn malik culimmadii uu ka faa'iidaystay oo aadka uga faa'iidaystay buu ka mid ahaa aadna uu u jeclaa aadna uu u ammaani jiray mararka qaarkoodna intuu la fadhiisto ومسائشة حديث كقرآن حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام كمذا لغتنا حديث كالله لغة حديث كالله أحكام تكد على هاي أي سامين كل هذا هاي اللغة أي أنتوا الله تبا أيو مركب ويدين جري مركا كتاب يرى الله قريبا بجرى مسائل الإمام النووي للإمام ابن مالك النحوي مركا علماء ديس أيو كمذا الفيهنا وحاول جرى بيت شطر جيس الدم بالوشة إنه إمام النووي وكو إشارة باب الابتداء مركي لمريو وحاكو جرت ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت كعند زيد النمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا يعني وحكاه اللي مبتداها إنا نكرا لغدي كريم إلا صور موين صور كوحا جرة صور كاسو مركا وحوغا كشيغ ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفت كعند زيد النمرة إنه يعني الظرف هاي أو عند زيد النمرة يعني أمثله كل كوضع لغاية مركا وحاكمتها ولا كعند زيد النمرة وهل فتن فيكم فما خل لنا وهل فتن فيكم يعني وهل فتن فيكم ومبتديه أو للراعي استفهام بعسكري وأنا كره لكن استفهام بهذا عسكري فما خل لنا أنه يسوي النفي عسكري وي ورجل من الكرام عندنا ويمشي رجل رجل كاسو من الكرام كو وناسن عندنا هذا أكثر نظر مثال كاس مركه وحو كتل ما يا بيدها الإمام النووي رحمة الله تعالى عليهما جميعا وحير هذا الهبين كاسو مرتوها وكتابك ونظمنه يا شيخ وهل كان مري إمام النووي مرتوها قاركون وحير المية شيخ ابن مالك سوى كتابك قريسة كجيرة أو نظمي وضع أيا انت هوري شطري وهوري مركي وقري وهل فتن فيكم فما خلوا لنا بو إمام النووي الباك سوى راعي جوجو واقما والنووي مركزو شطري قاسير راعي ورجل من الكرام عندنا مركا وانا مثال او احكامتي وكهدي ومثال يهي حقنا وتلمام يا اي دهان انكسو علماء قاركود اي دهان هذا الكاسي ادي وما سي سغنا مصنف رحمه الله تعالى وحوليه هي مؤلفات ظفر بدن بوليه فنونته كلا ددوان كهليا فن كستبي هلكيس وعنديه هي waxaa kamida kutubta uu sheekhu uu qoray ee mashhuurka ah ma wada sheegi karnaa kitaabka la yiraahdo al-adkaar la yiraahdo oo adkaarta kaga hadlay kitaab aad iyo aad qaali u ah oo markii uu soo baxay hadal mashhuur noqday bay culimadu leeyihiin oo ah bi'id daar washtari al-adkaar bi'id daar gurigaaga iibiyo washtari al-adkaar adkaar ku soo iibso يعني كتابك سيده او عجائب yahay markii ay culimadu arkeen wuxuu istaahilaa intii guriyaha loo gado in lagu soo gato hada waagi hore kutubta sidii lagu heli jiray way iska adkayd kutubta waa la soo qoran jiray sidii yar hada inta maktabada tagto kitaab hebel ma yaalaha waa imisa waa 100 waa 200 waa 1000 sidaas oo kale waagi hore ma jiri jirin kitaabka ama adaa qoranaya oo muddo dheer baad u fadhinaysaa ama qof kale oo aad lacag siisay waliba lacag aad u fara badan noqon haysa sida hadda lacagta guryaha lagu dhiso kale
guryaha lacagta lagu dhisaa waa qaali Soomaa maxay qaali u noqotay shaqo badan baa gashay Soomaa marka sidaas oo kale shaqada ay u gali jirtay kutubta qorashadeedu marka hadaad kitaab u baahato waxa laga yaabaa inay kugu kalifto inaad gurigaaga u xaraashto haduu kitaabku sida uu qiimo kugu leeyahay marka waxay yiraahdeen bi'i daara washtari al-adkaar waxa kamida kutubta uu sheekhu leeyahay kitaabkan riyaad saalihiinka ee guri kasta yaala muslimiinta dhamaan meeshii joogaan ay ku wada intifaaceen waxa kamida kitaabkii fiqhi inoogu dambeeyay minhaaj at-taalibiin wa umdat al-muftiin oo madhabka markii laga hadlayo u noqday muctamadka ay culimadu ku urureen intii ka dambeysay ay isagu adeegaan mid sharxa iyo mid xaashiyeeya iyo mid nadmiya qaab kala duwanba si uu adeegaya nin sharxada oo akhriyaba waxa kamida kutubta uu sheekhu leeyahay kitaabka leeyahay rawdatu taalibiin wa umdatu al-muftiin waxa kamida kitaabka at-tibyan fi aadab hamalat al-qur'an oo isagana kamida min ahsan al-kutub في باب القرآن الكريم وقراءته وفضله وحاكمذا كتبته الشيخ ليه رحمه الله تعالى كتاب ليلاد الإيضاح في مناسك الحج والعمرة الإيضاح في مناسك الحج والعمرة من أحسن الكتب والله قروا كمذيها أحكام تحتك مارتي عمرة تبع هذه آب مهمة وهل مجلد قطع عن وسونا ولي بشروح سيله ولا بس شقيه كتبتيسا أيو كميدي هاي وحاكميدا كتبتا وشيخ ليه هاي كتاب ليلاه مصطلح إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق وكتاب مصطلح ويه شيخ مركو حكا كتاب كسو اختصاري زيادات أو قدري كتاب ابن صلاح مقدمة ابن صلاح إسلا كتاب كيسي مركو إرشاد كاها مختصر كتاب ابن صلاح أيوة هذا سي اختصاري وكو اختصاري كتاب اللي يراهدو التقريب والتيسير إلى معرفة سنن البشير النذير سلسلة هذا الإعلامي بكجرة مصطلح شيخ مركا كتبتي اسو مركا كتاب كان وكميديا كتاب الأربعين كتب رمضان أو مقع 40 وضطة أيال قري وقت شيخ كهر يحليسي يكذبه لكن شيخ كتاب كيس السيدة وإله سبحانه وتعالى وبركي يسيدة وفافي يسيدة أمده أيوه انتفاع هذا كتاب كله أسيدة الله انتفاع مجره كتبتي كلي 40 أهيد أحاديث وشيخه هل كان كوروري وعفرتن بالي لكن وعفرتن يلا بوي مرك الله بدأ أول إسكجوي عرفته ترى لما هذا كونه كسرها وإسكجران لم بركبوها يكون واقعا مرك وعفرتن يلا بوي كتاب كان يسجلها علماء بدن بشر حضي أو سيابة بدن أو كلا دوان أي اللغة أديبي وأي أحاديث أو كل ميشاخو أي وحيتها أحاديث أي علماء الشيعان يعني مدار الإسلام إسلام كأحكام تيسا ومقاصد تيسا أحاديث كوريكت وأحاديث ويد أفرت كان حديث الشيخ وكقري ماشان هبك سيك لمجوين هذان أحاديث ماشان كقرن لكن أحاديث جودها مركز دوشة لقى استاغو إسلامكو أحكام تيسو هي مقاصد تيسو هي أخلاقيات كإسلام وكدولو أحاديث أي كد الوريجان أيو كمدي هاي أيو شيخ وكل مية رحمه الله تعالى مركا إن شاء الله تعالى ونسكب اللعبان هنا شيخ وحويري الحديث الأول حديث كوبات عن أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كودي وحالقوري أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال وحويري سمعت رسول الله رسولك الله بن مقلي صلى الله عليه وسلم يقول إسغوله إنما الأعمال أعماش بالنيات ليؤبك أهاتا إنما الأعمال أي إنما صحة الأعمال أعماش أصحتان كيدو بالنيات النيو إيكو أعطى وكو أصحدا وإنما لكل امرئ قف كستوحى هذا ما نواوح نيوذي قف كستوحى نيوذي بوليه فمن كانت قف كي أهات هجرة وهجرديسو إلى الله إلهي درتي ورسوله رسول كيس درتي فهجرته إلى الله ورسوله إلهي رسول كيس بأهانيسا ومن كانت قف كي أهات هجرة وهجرديسو للدنيا الدنيا أو يصيبها وصاهرة
أو امرأة أما دمر أو قبض أو ينكحها وسوق ورسده فهجرته هجراديسه إلى ما هاجر إليه وحا هجرودي أم النقنية حديث كان إساقها حاورين يا أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب أدقرنا يسان خليفك لبعض المسلمين توهي وحوصاء إسلامي سنة كي اللحاد هجرة كي شناد نوال ليرهدا إساقو داديسو تاي اللحية اللباتنجر markii uu islaamka uu soo galay saddex magac ayuu islaamka dhexdiisa uu ku qaatay oo ku yeeshay isagoo lama bixine nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo muuminiintii ay u bixiyeen Abu Hafs waa kunyada weeye marka gabadh Hafsa la yiraahdo lahaa laakiin tan sidaa ma aha leena Hafsa taaba la socotay tan waa ismu min asmaa'il asad baa la yiraahdaa marka Abu Hafs waa kunyo weeye kunyo waxa la yiraahdaa waa waxa أب أما كبلوذا أبو هبل أما هبل هبلاي إنه من نقانه كيويك إنه من نقانه كاس مركا وحا أدحي النبي عليه الصلاة والسلام سيدو كلوحة ليرادا الفاروق نوال ليرادا عمر الفاروق النبي عليه الصلاة والسلام بأدحي أو مركي أصو إسلامي حقي أيا كو أصو بحي وقبشدي يطوم شدي كبحي النبي عليه الصلاة والسلام bilowgii hore ee maka uu joogay dib badan buu soo maray waad garanaysan isagii iyo dadkii koobnaa ee la islaamay markaas uu nabiga kaleey salaatu wasalaam markii uu isagii iyo saxaabadiisii ay aad ay u rafaadeen ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam ilaahay bariyay inuu ilaahay diinta uu ku gargaaro laba nin midkood Umar iyo ninka la yiraahdo Abu Jahl marka Umar ayuu ilaahay durba ducadii ku aqbalay sidaas oo marka ku soo islaamay radiyallahu ta'ala an durba marka islaamnimadii ayaa kor noqotay dhuumashadii iyo cabsidii waa laga baxay marka Umar al-Faruq macna farqa bayna al-haqq wal-batil waxa kale oo la yiraahdaa amirul mu'minin isagana laqabkaas wuxuu u baxay markuu isagu uu khilaafada qabtay Abu Bakar markuu dhintay oo khaliifatu rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam oo isaga Umar uga dambeeyay يا خليفة رسول الله دي سجل لما ديه كراه يسوي دي خليفة توس والنبي جمونه وهاي خليفة توس كي وحوها أبو بكر بوها يسوينا خليفة أبي بكر بوها مركا هاي نقولنا يسا هدو كوكلا كدم بيا يسجل حابلنا يسا خليفة إلا سوء عليو خليفة رسول الله رسولك نبي عليه الصلاة والسلام كي إساء خليفك خليفك سيبا سين نقنيسا مركا ويسيب بدنيسا كوكلا هدو كسي دنبيانا سيدا كلا ويسيب بدنيسا مركا سا وحا ليدي مقع عن قاوان يقف كستبا وقاضان هيو لقب كان قاوان وقف كستقاضان هيو با مركا لو مقع عابي أمير المؤمنين سيدا سالو يري رضي الله تعالى عنه فضائل بدن بولها مالك وصو إسلامي إلى مالك وردنتي إسلامك وحوين أيو وقبتي رضي الله تعالى عنه تاريخ الهجرة يكون أفر تضبع مريسة نكي جديي وي سجا جديي إن تاريخ ذا المسلمين تترسدان محرم أي كسب باللابطو سجا أي جديي فتوحات فربضن بو أيو فرتاي أو فربضن أيو فرتاي مقالوين واوين با أيو لسي أو يسوي صوابها أنت وخلافها هي رضي الله تعالى عنه أخيرا نوال ديلي يسوي أو صلاة صبح كجرة رضي الله عنه نكاس أمرك حديث كورين هي وحولي سمعت رسول الله بان مقلي صلى الله عليه وسلم سوى إنما الأعمال بالنيات أي إنما صحة الأعمال عماش وحيكو أصحداهم بالنيات حديث كان إسقاء وحديث آذي آذوين وعلماء قاركوض أي كتل المامان إنه يهيها ثلث الإسلام أما ثلث العلم أي كتل المامان وعلماء فربضان وكمديها إمام الشافعي عبد الرحمن بن مهدي علي بن مديني أبو داود يدار قطني كل وضوح إليه هذا الحديث وثلث العلم ثلث العلم يعني علم جي إسلام كان مركز صدح لوقي بيو مال أي حديث كفر صنايا صارت ثلث العلم أو دهان إمام البيهقي وحليه هي إسلام صدح قيبض بكوك العرورة وقيب أعمال أو جوارح لحمنها لقى قبطه هي قيب عرب كلا قبطه هي قيب نية أهوي صدق هذا هو قيب سنة صلاة بهذا هو إمام صلاة محلو تعريفية أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم سوماهي بنية مركب بنية مخصوصة
marka biniyatin way kolka hore maxaa la yiri aqwaalun baa la yiri waa qowlkii Soomaa wa afcaalun baa la yiri biniyatin waatan dambe way saddexdaas marka u qaybsamaysaa qayb marka xadiidkani uu la go'ay marka wax alla wixii cibaadadii ku saabsanayd oo dhan niyo in loo shardiyo ahayd xadiidkana jideeyay sidaas marka wuxuu u noqday thuluthu al-ilmi way xadiid aad iyo aad marka u balaaran nabigu kaleey salaatu wasalaam marka wuxuu leeyahay acmaashu niyaday ku asaxdaa taa macnaheedu waxa weeye qofku hadii uu amal la yimaado oo laakiin uu niyoonin niyo una la imaanin amalkaasi amal noqon maayo uma tirsana macnaheedu waa saas طيب كدبا wuxuu yiri wa inma likulli imri'in ma nawaa qof kasta waxa uu ahaaday waxa uu niyooday qofku wuxuu niyooday buu leeyahay wuxuu niyoonin oo si kama oo kale uu sooga sameeyay uma tirsana inta markuu nabigu kaleey salaatu wasalaam uu sida uu yiri ayaa miisaal buu sheegay nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri faman kanat hijratuhu ila Allah qofka hijradiisu ilaahay dartii ay ahaato fa hijratuhu ila Allah wa rasuulihi فمن كانت هجرته إلى الله نية وقصدا هجرتيسا وحي نقطة إلهي درتي أو نيدي سبا ساعة هايت ونيوذي فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا حكم كان سلاسة نقون هيسا قف مهاجر أيو نقون هيا هجرة ندسات قرن هيسان وقفوا إنو كهجروا دولك قالادا دولك مسلمين تأو هجروا إساقوا الدين تيسا لا عراريه إسلامك بالله ويسينا waad garan haysaan hijradii saxaabadu ridwaanullaahi ta'ala alayhim ardul habash u hijrooday laba jeer xagga oo cararay madiinana ay qaybi nabiga kaleey salaatu wasalaam uga soo horeeyeen kadibna nabiga kaleey salaatu wasalaam loo idmay inuu hijroodo sidaana uu ku soo baxay oo madiina uu ku yimid marka qofkii marka niyadiisu ay saa ahayd oo markii uu soo baxay ilaahay dartii u hijro ay ka ahayd niyadaas uu helaya qof muhaajira oo ajirka faraha badaan hijrada ku soo arooray laga siiyay ayuu noqonayaa ومن كانت هجرته لدنيا قفك أي هجرتي سنقطة الدنيا درتها ويصيبها وصاهره وماشا وصفري ومن هبلا وصفري إنه صاشق يسوء الدنيا صاهره أو امرأة أما جبر ينكحها وسوق بورسدو انت أبو قصد كيسو هذا هل كان كك أو من هبلا هذا هل كجبر كسوق بورسدو يدي سوى انت فهجرته هجرتي سوء إلى ما هاجر إليه وحاءه هجرته أبو نغنيا ها وقف الدنيا دانتيون qof guurdoon u baxay uu noqonaya marka laba qof oo minna ilaahay dartii u hijrooday minna uu adduunyo iyo gabadh soo guursay iyo wax noocaas u baxay ayaa laba qof oo kala duwan bay noqdeen minna ajir farabadaan buu helay minna waxba muuna helin waxa kala duwan marka muxuu yahay niyada ayaa kala duuday sidaa darteed niyada waxa loo sharciyeeyay oo kale taas oo kale waa isku ficil way waa isku qaab midna waa cibaado midna waa caado maxaa kala saaraya cibaadada kala saaraysa cibaadada niyada kala saaraysa weysadii oo kale xubnahan iyaga waa la iska dhaqdhaqdaa hadii marka aad iska dhaqasho aan niyo ahayn haday tahayna waa iska caado haday niyada raacdo oo weysa magacaas oo sharcigu u bixiyay aad qaadatana ayadana waa cibaado weey marka waa tamyiizul cibaadaati anil caadaat iyo تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض عبادة لفتها يدو عبادة إصلاح بهذا أن اسكم مرتبة هاي مركا إن يدو عبادة اسكم متكا السوء لكن مرتبة عن اسكم مت هاي أي سبب كلا ساريسا تصالحان صلاة أو كله وصون عفوا وقيب سنة أي قيب واجبة ويسوي جيران سوما تصالح ركعتي الفجر لبعض ركعات الفجر كهرية وسنة فضل بدن وهي صلاة الصبح كدم بيسانة ولا برك عضو تاسنا ولا برك عضو لبعض ركعات تكون يسو مفجر كيبا بسوا لبعض ركعات سنة لها كهرية واحد كلا صار يسمى كم حاجة هاي والنية والنية ماشي النية بعضنا وادي قلبي وهي وقلبي إن عرب كلا جد واقعنا واتفقهاء وعدهان وسنة سي إسقها شذان أعمال شقار كوضو إن يدا لقول واقع لازم تهين ويبجران بقى يدا إن لقول واقع لازم تهين ويبجران سيدة صالحان طلاقي أوكل مثلا طلاقي أوكل قفكو هديو إسلامتي سدم عينه فرو أو نيو ذكرية فريتان دي نقون ميس وحاكم إذا أوكل بوركي أوكل وحاكم إذا أوكل دارتي أوكل مثلا
qof aad damacsan inuu wax ku dhaarto wuu niyooday kaliya de ahkaamtii dhaarta ka dhalan mayso waa inuu ku dhawaaqaa marka wakaasa marka cibaadooyinka aan caado shabihin cibaadada aan caado shabihin looma sunneeyo looma sharciyeeyo niyo tusaale ahaan qur-aanka akhrintiisa oo kale caado kale u shabaha ma leh halkaa intaad fadhiisatood kitaabka qur-aanka la soo baxday baad baqra bilowdoo dhammaysay niyo uma baahna adoo niyoonin baad ajirkii helaysaa sababta waxay tahay caado kale oo ay shabahday ma jirto niyada lafteedi waa cibaado soo maha niyo kale uma baahna sababtoo caado kale oo shabahday ma jirto wahaluma jar sheekhu marka miithaalada uu sheegay wuxuu ku sheegay waman kaanat hijratuhu lidunya yusiibuhaa aw imra'atin yankixuhaa dumar maxaa meesha loogu sheegay oo miithaalka loogu sheegay waxaa loogu sheegay bay dhahaan dee horta waxyaabaha miithaal ahaan dhinac way u tahayo waxyaabaha aan cibaadada ahayn ee qofka uu niyada u leexin karay ka mid tahay waa midda kale dhacdaa jirtay oo markay saxaabadu ay dee soo hijroonhayeen nin baa jiray gabadh madiine joogta jeclaaday marka inuu guursado ayuu ka codsaday ayadiina way diiday waxay tihi inaad soo hijrooto mooyeen guur isaga may ha iga talagalin ninkii marka wuxuu usoo baxay usoo safray gabadha inuu guursado magaaladii madiine u yimid gabadhiina wuu guursaday Ummu Qays baa gabadha la dhihi jiray isagiiba marka waxaa loo bixiyey muhaajiru Ummu Qays kii usoo hijrooday isaguna wuu soo hijrooday saxaabada faraha badan ee kale way soo hijroodeen laakiin waxay usoo baxeen baa kala duwanaaday isagoo gabadhaas usoo safray muhaajiru Ummu Qays baa la yidhi iyaguna waxay usoo hijroodeen inay diintooda ay la soo baxaan oo ay la soo baxsadaan oo wakaasa marka miithaalkaas ayuu ku yimid ayay dhahaan inkasta oo xadiidkaas ninka asaga ahaa sidaa usoo safray xadiidku uu sugan yahay xaafidka ibnu xajar wuxuu dhahaa calaa sharti shaykhayn weeye laakiin in uu xadiidkan inama alacmaalu binniyaat inuu ninkaa ku soo arooray ma sugno wax cadaynayaa ma jiro sidaasuu yidhaahdaa fahijratu ilaa maa haajara ilayh rawaahu xadiidkan waxaa wariyey imaam almuxadithiina muxadithiinta labadoodii imaam ayaa wariyey midka koobaad abu cabdillaahi muxamed binu ismaaciil binu ibraahim binu lmugiirata binu bardisbah albukhaariyu bukhaarigaas marka waa meesha uu ka soo jeedo bukhaara la yidhaahdo loo tiiriyey midka koobaad kaa weeye sheekha labaad ama imaamka labaadna waa abulxusein muslim ibnu xajaaj bin muslim alqushayriyu annaysaabuuriyu kaa weeye labadaa sheekh ayaa soo saarayoo waxay ku soo saareen fii saxiixayhimaa labadoodii saxiix labadii kitaab saxiixu lbukhaari iyo saxiixu muslim ayay ku soo saareen alladayni labadaasoo humaa iyagu asaxu lkutubi kutub kuwa ugu saxiixsan ah almusanafati ee la qoray kutubta axaadiidta laga qoray aad iyo aad bay u fara badan yihiin aad bay u badan yihiin labadan kitaab marka waa asaxu lkutubi almusanafati fi xadiidi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam iyaga marka sababteed sidaa u noqdeenba labadooduba waxay shartisteen inaynan ku soo aroorinin xadiid sugan mooye xadiid ay hubsadeen oo sugan mooye ku kale inaynan ku soo aroorinin bay shartisteen saasay marka waxay u noqdeen labada kitaab ee ugu saxiixsan kitaabka qur-aanka markii la yimaado iyaga ayaa soo raaca iyaga laftooda marka haddana la kala fadilaayo saxiixu lbukhaari baa lambarka hore ayaa ku jira oo isaga qur-aanka xagga martabada sixada ku soo xiga muslimna marka waa ku soo xiga meesha marka ay labadoodu ay ku kala baxeen waxa weeye shardiga ay xidheen oo labadan qof ee kala warinaya ilaa xadiidku sanad buu ku imaanayaa sooma sanadkiina shakhsi baa loo baarayaa sanadka marka imaam al-Bukhari ayaa wuxuu shardistay labadan qof ee kala warinaya waa inaan soo hela oo soo hubsadaa laba qof oo isku casri inay noqdeen marka saas wey laba qof oo kulmay inay noqdeen ninkan kalena taamuuna shardiyin taasay marka ku kala duwanaadeen oo imaamu muslim muqadimada ayuu hawsha aad ugaga hadlaa laakiin markii de ay culimadii iyo muxadisiintii markii loo bandhigay labadii kitaab arkeen waxay u arkeen kitaabka la yidhaahdo saxiixu lbukhaari inuu yahay asax min saxiixi muslim xagga sixada xagga laakiin sinaacat lxadiid markii laga hadlayo sinaacat lxadiid qaabka yaana ay kitaabka u tartiibiyeen markii laga hadlayo saxiixu muslim baa laga horreysiiyaa sababtu waxay tahay
صحيح مسلم وحو سميي حديثك شواهدي سأردن وحل لويح حديثك كبابه أردن بهال ميل سوق يعني بينما بخاري هل حديث لغاية بإنه أنت سو ميلات إنه كوكلا شيخ شيخه مركا لبدا شيخ با سو ساري مركا لبدا شيخ كلية ما هي حديث كان يسقعها وسو ساري ستة بو سو سارين يعني لحدا وما ستة اللي يراي لحدا با ويكسو أرورين لحدا ويكسو أرورين لكن لبدا ما دام لبا كتاب أو مرتبطة جالسي سنة يهين سيداسو وشيء مركا حديث كان يسقعها وحديث آدي قالي هو علماءنا أي لهذان وحاهبون إن قف كستو كتاب قرية إنه حديث كان كوب باللابو إلا حديث كوحو كهلا يواني يديوي سقف كطالب العلم قال له حسوسيو والعلم كان برنا يسو نيو كاغباهية هايو إخلاصي إلهي درتي إنا نيوتو كاغباهية مركز أجر كيدي هليسا سمرك أرضي لو حسوسيو إن كتاب قف كستو كتاب قرية إنه كب الله سيدة أبو إمام البخاري رحمه الله تعالى وكب الله حديث كان يسقى مركا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كليه أمبا يا لجوريا حديث عمر بن الخطاب كليه أمبا لجوريا مركا إلى سدح تابعي أيا مرتك لورينيا سدح لا تابعي وحي كدم بيسي أيو مركا حديث كفافي لكن كل كي هوري هل بيكسعتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بلغوريا الحديث الثاني حديث كاللبات عن عمر وحالغوريا رضي الله تعالى عنه أيضا سيده كله يعني سيده حديث كاهر اللوغوري يا كان اللوغوري قال وحير بينما وقتي نحن عند رسول الله أكتيس أن كسونا صلى الله عليه وسلم ذات يوم مالمها كاملة اطلع علينا وحان صوبحي رجل نين كاسو شديد بياض الثياب دركيس عضان توضو أي درنتا يعني در آدو عد أيو قبي شديد سواد الشعر تمهيس مذو قودون آدو درهيد نين تمهيس آدو مذويهين oo timo wasakhaysan iyo timo boorle iyo aan ahayn ayuu ahaa la yura lama arkayn alayhi dushiisa atharu safar calaama safar kama muuqanin wala yaarifuhu mana garanayo minna anaga xaalu kamid yahay ahadun qofna garan maayo anagii meesha fadhinay ee nabiga kaleey salaatu wasalaam la fadhinay qofka nagamida oo garanayana ma jiro حتى جلس إلى أفريسته إلى النبي أفريسته صلى الله عليه وسلم حق النبي أفريسته يعني فأسنده وحكتيري ركبتيه لبدي سيلو يسجل لبدي سيلو إلى ركبتيه نبي قال لبدي سيلو وكتيري ووضعه كفيه لبدي سي عكول جمعان على فخذيه يسجل بوديه سي وصيدا وضل لكتي يعني قاب إدبسيه أيو أفريستي لو يها أنت تقول كدكتي أيو النبي عليه الصلاة والسلام لو يهسي بكهر جديه سي هذا الكا ويدين هيو يوحى كصوبحية وصفي عن وفير صدا قفك طالب العلم يا شيخ يسي وهر فريسانية قاب كاسوك لإنه فريستا في عمل النوع إدبسي يوي فقال وحير يا محمد بويري محمد أخبرني وحاد إيغا ورنتا عن الإسلام ماذا بل إيغا شاكي فقال رسول الله الله وحير صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد وإن قرت أن لا إله حق وعابد إنه سنجر إلا الله ألم وين وأن محمد النبي محمد رسول الله رسولك إلهي إنه ياهي وتقيم الصلاة أتوسسه وتؤتي الزكاة أبحسه وتصوم رمضان أصونته وتحج البيت كان أدحجده إن استطعت وهدات كرتو إليه حقيس سبيلا ودعانا ضعو كرتو آدي كرتوي قال وحوير ننكي صدقت رنتاوي فعجبنا له أن الله يابني محان الله يابني يسأله وريسانيا ويصدقه هدنه ورمينيا قفك وحكو وريسانيا وحا أصل إنه وحا قرنين وحكو وريسانيا وإنه نشيء قرنين لكن كل كادو ورنتا هدو ورنتا أو كيرادو هذا إنه شيء يقانبا ماشي كم وقنيسا وأن الله يابني ويدهن قال وحير فأخبرني وحاد إيغا ورنتا عن الإيمان إيمانك إيغا ورن قال وحير أن تؤمن بالله إلهي وإن أذرميسو وملائكته ملائكتي سنة رميسو وكتبه كتبتي سنة أذرميسو ورسله رسوشي سنة أذرميسو واليوم الآخر مالك قيامها مالك آخرنا أذرميسو وتؤمن أذرميسو بالقدر
qadarka aad rumaysa khayrihi kiisa khayrka iyo wa sharrihi iyo kiisa sharka aba qaala wuxuu yiri sadaqta run baa sheegtay qaala wuxuu yiri hadana fa akhbirni waxaad iga warantaa can ihsaani ihsaanka iga waran qaala wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam an ta'budallaha ihsaanku waxa weeye an ta'budallaha ilaahi inaad caabudo kaannaka sida adigoo taraahu arkaya fa in lam takun taraahu hadii aadan arkaynin fa innahu yaraaka isaga ku arkay qaala wuxuu yiri fa akhbirni waxa kaloo iga warantaa can saacada qiyaama iga sheeg waxa iga sheeg قال وحير النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول كان ويدين يا إماه عنها ساعد وحلق ويدين يا أنجا بأعلم متك أجان بدن من السائل كان ويدين يا أو أدجا قال وحير فأخبرني وحكلود إجور أنت هذا العلامة ساعد يا جارت داعي سآذن شيء كريم فأخبرني عن أماراتها بالعلامة هذا وحي شيء قال وحير أن تلد الأمة أضونت وإني دشو ربتها سيدتها رواية قاركود ربها ويدغيان سيد كيدي وإني دشو وأن ترى وإن أركت الحفاة كوي كبها العراة قاقاونا درلان تاي اسكا أردنا العالة عيبها رعاء الشاي أرغ الراعي يتطاولون إيغو كبير ارتميا كترتميا في البنيان اسكا قال وحويري عمر ثم انطلق وتغينك فلبثت وان نغادي مليا مع المهجوغي ودب سي جوغي انو غرانهين نينكن عيده وياي فقال لي وحصوبره ايغو يري يا عمر اتدري مياد غرانيسه من السائل كان سؤال مالك دويد ويدين يا ما غرانيسه قلت وحاني الله ورسوله اعلم غران ما هي الهي رسولك سا غرانيا قال وحيري النبي عليه الصلاه والسلام فانه جبريل بوها اتاكم وحيدين كيمد يعلمكم إنه إذن بر دينكم دينكينا إنه إذن بر رواه مسلم بحديث صاري حديث كان يسقعها وحكمدي هاي أحاديث ووين أي كمدي هاي يدنا آدي آيات كأم جوي إلى علماء أي قارقات دهين إمام القرطبي ويه وحو هذا وحابون حديث كان إن لقوم على السنة سنة وحديث لقوه يعني كيسي أما هو يدي سيد أحد قرآن كوا فاتحة الله مقعابي القرآن أما الكتاب سيد الله مقعابي لأن حديث كان وحو كلن سنة هي أحكامتي أي كلن سنة هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنت مهم سنة بحديث كان وكلن سنة هي حديث كان يسقعها وكاس عمر بن الخطاب ورين هي وحاو كشاكين هي مال مالمها كميدا والنبي عليه الصلاة والسلام يقيب صحابة أي ميل فديين marka nink baa meel gaaban kaga soo baxay dadku de kolkay yar yihiin oo meel degan yihiin dadka area degan waa la iswada yaqaana qofka marka meel noocaas marka degan tahay meel gaaban kaga soo baxa laba waa mid ruux meelahan ka soo baxay oo dadkii aad taqaanay oo aad garato ama inuu yahay ruux safar oo meel fog ka yimid oo de calaamadihii safarkuba ay ka muuqdaan ninkan marka ninkii nin la gartay ma noqonin nin safar oo calaamadihii safarka ka muuqdaana isagana muuna noqonin qofku de markuu musaafir yahay inay maartay oo rafaad ka muuqdo oo dharkiisu uu iska wasakhaysan yahay oo kabihiisi iyo lugihiisa bood badan ay leeyihiin oo timihiisi ay iska maartay isagana iska duruufaysan yihiin oo calaamadahaas lagu yaqaan agaab xambaarsan yahay oo wakaasa ninkani marka dhinac wuxuu uga ekaaday nin xaafadahan ka soo dhaxbaxay buu ekaaday nin la garana ma ah nin safar ka yimidna bilaantiisii ma leh way la yaabeen marka sidii uu soo socday buu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu hor yimid gabaal waa kan laga sheegay oo jibriil buu ahaa sababta uu yimidna nabiga calayhi salaatu wasalaam baa gabaal ka sheegay oo wuxuu yiri wuxuu idinku yimid inuu diinkiina idin baro oo waa ahkaamtan hadda xadiidka ku jirta weeye sababkana marka waxa weeye saxaabadu ridwaanullaahi tacaala calayhim inay nabiga calayhi salaatu wasalaam ahkaam farabadan ka bartaana way jeclaayeen inay su'aalan nabiga weydiiyaan oo su'aala ku celceliyaan oo wax kasta ku dhacay ay ku soo dhacay weydiiyaan way ka xishoonayeen marmarka qaarkood waxa dhacaysa inuu nabigu yiri wax weydiiya oo ay ka jawaab ay la hadli waayaan cabsi darteed iyo xishoon ay nabiga ka xishoonayaan waxay marka jeclaan jireen ruux reebaadiyaha haybeysiga iyo xishoodka iyagu ay ka xishoonayaan isagoo aan qabin oo iska reebaadiyaha iska engegan intuu nabiga u yimaado calayhi salaatu wasalaam inuu su'aalo badan u weydiiyo iyaguna marka ay sidaa ay ku helaan wax fara badan ay u baahnaayeen marka
jibriil baa marka ayaa iska soo dhigay nin su-aalo badan qaba oo kay rabeen oo kale ah laakiin ninkii nin reebaadiya uma eka wuxuu u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaa laga sheekeeyey buun u fadhiistay axkaamtan ayuuna weydiiyey iyagiina marka intaa way fiirsanayeen hadalku wuxuu uga bilaabay yaa muxamed buu uga bilaabay sababtu waxay tahay dadka reebaadiha meelaha ka imanaya baa hadallo jafaaf oo noocaas oo kale ah bay ka bilaabi jireen mar haddii marka uu yaa muxamed yidhaahdo nin reebaadiye ahoo axkaam fara badan aan garanayninoo wax badan inuu nebiga weydiiyo rabo oo cilmi ahaan iska maran oo wax badan ay ka dhagaysan doonaan oo uu nebiga weydiinayo nebiguna uu ka jawaabayo taasay marka ay asal ahaan jeclaan jireen yaa muxamed markuu yidhi noocay rabeen marka noqday su-aalahanu marka ayuu weydiiyey haddana su-aalihii qof caamaya muna u ekaaninoo markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uga jawaabo run baa sheegtay buu leeyahay tii lafteedu ama kaa kale ku noqotay dhammaan marka way dhagaysanayeen sidaas ayuuna marka ugu warramay marka xadiidka aakhirkiisa maalmaan joogay buu cumar leeyahay radia allahu tacaala canhu riwaayadka qaarkoodna waxay sheegayaan ninkii markii uu sidaa u kacay inuu nebigu yidhi war ninka ii soo celiya oo ay saxaabadu ay ka daba ordeen kadibna ay gaari waayeen kadib markii ay soo noqdeen inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam daaka jibriil buu ahaa cumarna wuxuu leeyahay maalmaan joogay oo maalmo kadib buuba nebigu ii sheegay xogta helayba markaasay isku qabanaysaa cilmiga waxay ku jamciyaan cumar radia allahu tacaala canhu majliskii wuu ka kacay oo meesha uu nebigu ugu sheegi doono markaa muuna joogina wuu baxay hawluu u degdegay baa laga yaabaa xogtii marka sidaasu isaga uga horbaxay saxaabada loo sheegay maalmo kadib ayaa marka ayuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ninkii isaga maad garanaysa maya ninkii jibriil buu ahaayo wuxuu idinku yimid inuu diinta idin baro oo sabab u baraya dee wuu weydiinayaa yacni su-aalaha uu weydiinayo inaad idinkuna aad sidaa ku barataan ood ka faa'iidaan ilaan kolkii cilmi qof la weydiinayo adiguna aad dhegaysanayso ka loo jawaabayana cilmiga uu bartay adigan kale dhegaysanaya ag fadhiyaana waa baratay can cumar waxaa laga wariyay aydan yani sida kaa hore laga wariyay qaala wuxuu yidhi baynamaa waqti naxnu anagu cinda rasuulillaahi rasuulka ilaahi agtiisa aan ku suganay sala allahu calayh wasalam daata yowmin maalin maalmaha ka mida id alaca waxaa nagu soo baxay calaynaa dushanada rajulu nin baa nagu soo baxay ninkaasoo shadiidu bayaadi hiyaabi dharkiisa caddaantoodu ay daran tahay shadiidu sawaadi shacri timihiisa madowgooduna ay daran tahay laa yuraa aan lagana arkin calayhi dushiisa aharu safari calaamo safar ayna ka muuqanin walaa yacrifu uuna garanayn mina annaga meesha fadhina xaaluu ka mid yahay rajulun axadun mid annaga naga midan uuna garanayn xataa jalasa ilaa uu fadhiistay ila nabiy nabiga xaggiisa uu fadhiistay sala allahu calayhi wasalam faasnada markaasaa wuxuu ku tiiriyey rukbatayhi ilaa rukbatayhi nabiga logiisa wawadaca wuxuuna dhigay kafayhi sacabadiisa ama cukuradiisii gamceed ayuu calaa fakidayhi isaga bowdihiisii dhigay ma ahe nebiga bowdihiisii dhigayn iyadana waa tafsiir kaloo la yidhaahdo wa qaala wuxuuna yidhi yaa muxamedu akhbirnii can ilislaami islaamka iiga sheeg wax iiga sheeg yani arkaantii islaamka ayuu nebigu ugu jawaabayaa faqaala rasuulullahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam alislaamu an tashhada waa inaad qirto an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu alla mooyeen wa anna muxameda nebi muxamedna rasuulullaahi rasuulka ilaahi inuu yahay sala allahu calayh wasalam wa tuqiima asalaata salaadana aada oogto ilaahay inaad keligii qirto nebi muxamedna rasuulnimadiisa aada rumayso waxaa kusoo xiga labada shahaadateyn baa laysku yidhahda ma kala haraane wa tuqiima salaata waa ruknigii marka labaad ee soo raacayo wey marka salaada axaadiidta haddii laga hadlayo haddii qur-aanka laga hadlayo iqaamaa laga cabiray waa inaad toosiso wa tusalliya salaata lama dhihin wa tuqiima salaata baa layidhi qur-aankana waa aqiimu salaata wakaawe sida marka dee salaada loo oogayana waa sidii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ina baray ee uu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii salaadu ma ah wax uun abka soo gaad ah oo aabbahay baan arkay iyo dadka anoo uun isagoo la tukado un baan caqliyaystay oo aniguna sidaasaan dadka ugu biirayaa qaabkaa ma ah salaada waa in la bartaa axkaam bay leedahay shuruud iyo arkaan bay leedahay sidaa markii loo barto unbay salaad noqonaysaa laakiin hadday noqoto caqligaygaan ku wadaya hadday noqoto waxaa laga yaabaa adiga oo muddo dheer moodaya inaad salaad tukanayso inay salaad kuu noqon weydo wa tu'tiya zakaata zakadana aada bixiso zakadu dee hadday tahay tii ramadaanka hadday tahay zakaatulfidri ahayd iyo tii kale zakaatulmaal midkay tahayba waa inaad bixisaa wa tasuuma ramadaana ramadaan aad soonto wa taxuja albeyta beytkana aada xajido xajki in istatacta ilayhi sabiilan wada ahaan haddaad u awoodo wey
يعني حجku sida acmaashan kale oo kale ma aha oo acmaashan kale way ka dhib yar tahay oo adigu hadii gurigaaga iska jawaado wixii xoolo Ilaahay ku siiyo adigu gurigaaga joogan xoolaha bixi baa lagu leeyahay zakadii ramadaankiina de waa soomaysaa salaadiina sidoo kale laakiin xajku wuxuu u baahan yahay inaad safar buu u baahan yahay xoolo u baahan yahay waxyaabo badan buu u baahan yahay hadaad awoodo marka ay waajib ku noqonaya hadaadan awoodin waajib kuma laakiin mar hadaad awoodo waajibkii wuu ku fuulay واجبكي وكفوري حتى أوديتانكي هدي أي دب وحكاغا حماضة حوالات يالتي واجب بين نقطتين الحاجة صومها حجكي هدانا ما دن قدانين واب فليستو مدد دير باسكت جوكتو حولي باكو ضعفي حجكي وعلى غاربا لأنه هو واجبي وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا هداد ودأهال أود قال وحير صدقت الربا شاكت فعجبنا له وان الله يا ابني محايا ليسأله وريسنا يايو ويصدقه هدنا وهمينا يا قال وحير فأخبرني وحاديق ورنتها عن الإيمان إيمان كان بل وحي غشك قال وحير النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله إلهي وإن أضرميسو وملائكته ملائكتي سنة أضرميسو وكتبه كتبتي سوائن أضرميسو قرآن كي كتبتي السماوي يكون رئيسيبا ملائكة انت لو شاقين انت لو شاقين با وعدن قرن هيني بوائن أضرميسو ورسوله رسوشي سنة وائن أضرميسو نبي محمد انت كون رئيسي وطن حق الرومين واسكوا لحرينيهن واليوم الآخر مالك آخره إني جرتو أولا حسابين دونه مالك صوصعة إني جرتو أو نوعانا وائن أضرميسو وتؤمن وائن سوى كلام رميسو بالقدر قدرك أقدارتن كوغو دعيسان وإناد رميسان تهايو وح إلهي كو قري وعن مرنبا كسيغان إنay tahay waa inaad rumayso khayrihi midkiisa khayrka iyo sharrihi kiisa sharka saasa la rabaa qadarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa inaad rumayso oo hoggaansanto Ilaahay tasarrufkiisa subhanahu wa ta'ala baad ku hoos jirtaa soo rabo kugu talinaya aqdaar aadan rabin baa laga yaabaa qaar aadan rabin baa laga yaabaa inay dhibaato ku soo gaadho baa laga yaabaa waxyaabahan xamili karin baa laga yaabaa inay kugu dhacaan imtixaan ma imaanaya waxa soo dhan markaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad isu dhibto tira Ilaahay baa ii qadaray xanuunkii uu ka fududaanaya laakiin markaad qaadan weydo oo aad dhulka isla dhacdo oo waxaan muxuu igu dhacay aad dhahdo markaas idin kaar kugu dhacaysa marka qadarka Ilaahay khayr iyo shar midku kugu haleelaba rume qaal wuxuu yiri sadaqta runtaa weey قال وحير فأخبرني وحديقة ورنتها عن الإحسان إحسانك إيقا ورن إحسانك هو مرتبة عبودية وآدي آدو صريسو كمال الحياة حشود إلهي سبحانه وتعالى الله حشوده ماشي ودم يسوي ونبي عليه الصلاة والسلام واكن شاقي وحير إحسان وحال إلهي أن تعبد الله إلهي إن عابده كأنك تراه سيد أدي وأرك إن أدو عابده عدة أتكاهي سنة كعب سنة مركي أيكو أراكتو إيا مركي أينكو أركن isku sima waa is ilaalinaysa markii lagu arko marka makhluuqaadkan iyo maartay aadamahan iyo kuwan aad isku mid ka tihiin baabad sidaas oo ilaalinaysa Allahi ku abuurtay ka waran marka Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu caabudaa oo uga cabsataa oo awaamirtiisa uu ilaalisaa oo wuxuu ku diiday aad isooga ilaalisaa sidii isagoo ku arka sidii adigoo arka afwan sidii adigoo arka sidii adigoo arka هدي فإن لم تكن هدي أذن هين تراه مد أركا فإنه يراك يسوق أركاه هاي سجبك أرك قال وحير فأخبرني عن ساعة قيام إيشيغو يعني قرن دايسا قال وحير النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول كن لو يدينها يا معها عن الساعة عنها ساعة وحلقوا يدينها يا أنا يعني بأعلام متكعب من بدن وكؤب من السائل كويدينها يعني أنا يا أديان يويدينها يا وينقسم النهاي وهي اسكمت بينك النهاي garan maayo goor ay dhacayso marka taasina waxay ku tusinaysaa qofka caalimka hadii la weydiiyo wax uu garanayn waa inuu ka xishoonin ma garanayo waa inuu ka xishoonin ha isku qardadixinin waxa aadan garanaynin cilmi oo dhan Ilaahay kuma barin wax yar oo aad yar baa lagu baray waxaad garanaysana dadka u sheeg waxa aadan garanaynin ma garanayo dheh asal waxa uu tahay jahil asal jahil baad u tahay adoon waxba garanaynin oo aan magacaaga garanaynin waxba garanaynin ba soo dhalatay wax yar baa kadib lagu baray inta ayada ruuxi wax ka weydiiya u sheeg oo jawaab wixii aadan garaneynina garan ma haya dheh si kalsooni ah laakiin ha isqardadixin nabiga kaleey salaatu wasalaam bal fiiri waa rasuulka Ilaahay wey saxaabadiisi ugu dhax fadhiya waxba la weydiiyo ma garanayo isku mid baynu ka nahay si dhib yar u yiri sidaas marka la rabaayo dhaqankii culimadan ahaan jirtay qaale wuxuu yiri fa akhbirni waxaad iga warantaa هذا ساعد يقارت يدعي سألا جرنين عن أماراتها على مدى هذا وهي غشة قال النبي وحيري أن تلد الأمة على مدها وحاكمها
أن تلد الأمة أضونت إن يدشو ربتها سيدة ديدي أما ربها روايات قاركو سيد كيدي مركا يعني معنى هذا دور معاني أي شيغانو وحا كميدا آخر الزمان وحا بدن دونا ددك عاقة عقوق الوالد كأيان آدو بدن دونا إلا قفك والد كيسا أولا دقمو سيدا أدوامها لولا دقم جري أو كلا لو درسن جري لو قاب كاس أو كلا إلا أولا دقمو مركا آخر الزمان ayay marka noqonaysaa dadka intay diinta ku yaraato ayuu waalidkiisa caaq ku noqono markaas sida uu adeegsanaya sida uu dirsanaya waxa kale oo iyadana lagu fasiraa aakhiru zamaanka waxa badanaya adoomaha fara badan futuuxaadka dhulka gaalada la qabsanaya intay bataan bay adoomuhu marka sidaas ayay ku badanayaan marka adoontu sayidkeeda marka ay wuxu dhasho umul walada la yiraahdaa marka adoomihii marka umul walada markay noqoto asal ahaan in la gado lama ogola markii uu sayidkeeda oo dhintana horay bay ka xoroobaysaa raasmaalkay ka xoroobaysaa marka adoomihii intay farabataan jahliina oo farabato oo adoomihii umul waladadii lama gadi karo ay dadku gadaan oo suuqyada ka buuxsamaan ayaa ilma ay dhashay iyada oo aan leen adoon uma noqon kartee ilma ay dhashay oo ay sayidkeeda oo dhasho isagu xor ah baa laga yaabaa inuu suuqa ka soo iibsado markaasoo adoonsanaya isagoo garanay in hooyadii tahay leena adoomihii bay aad u farabatay mithaalada lagu sheegay kamid tahay معانيga lagu sheego waa antara inaad aragtaa kamida marka calaamadahan uu nabigu kaleey salaatu wasalaam sheegay calaamadaha qiyaamuhu kuwa waaweyn iyo kuwa yar yar bay marka isugu jiraan marka calaamadahan oo kale waa kuwa yar yaraa weey kuwa waaweyn oo cadeedo inay xagga ka soo baxdo oo kale dhinaci ay u dhici jirtay inay ka soo baxdo oo kale masiixu dajaal soo bixitaankiisa iyo calaamadahaas kuwa si waaweynaa waa antara waa inaad aragto al-xufaata kuwa kabaha la aan jiray العراة قاقاونا اسكا عرضنا العالة عيداها رعاء شاي أريق راعي الراعي رباديها اسكا هايو يتطاولون كتر تميع في البنيان الاسكا dadkii reebaadiyaha in xoolaha haysanin baadiyaha iskaga duruufaysnaa xaymaha iska raacanay dadkii oo magaalooyinka intay soo galeen suuqa ku tartamayo oo maarta wada dabaqyo wada dhisanayo mid kasta uu leeyahay ka dheeray adu taa markaad aragto iyadana calaamadaha qiyaamaha ayay kamid tahay waa xaaladda taas aad u taagantahay qaala wuxuu yiri Umar thumma intalaqa ninkii uu tagay falabithtu maliyan maalman sii joogay thumma qaala li subhanahu wuxuu igu yiri yaa Umar atadri miyaad garanaysaa mani saa'ilu maalinkii dhaweyd ninkii waxay weydiinaya miyaad garanaysaa faqultu waxaan idhi Allah wa rasuuluhu a'lam ilaahay rasuulkiisa garanaya qaala wuxuu yiri nabigu kaleey salaatu wasalaam fa innahu jibriil buaha ataakum wuxuu idinku yimid yuallimukum diinakum diintina inuu idin baro rawaahu muslim طيب marka xadiidkaas insha Allah ta'ala aan ku joojinayna caawi billahi tawfiiq sallallahu ala nabiyina muhammad asalahan habeenada la akhrinayo waa isbuucan hadda waa caawi habeen dambe laakiin habeenaha kale waa waxay ka bilaabmaysaa axada habeenihii sheekhu akhri jiray axada ay ka bilaabmay arbacadayna ku joogtaa marka insha Allah ta'ala sahla wala socdo jazaakumullahu khayr